jenaraal maxamed nuur galaal mar kale kusoo dhawaaw xalqadii hore waxaad nooga sheekaysay dagaalkii 64 iyo sidii wax u dhaceen waxaa kaloo nooga sheekaysay diyaarintii jabhadihii xornimo doonka ee Soomaali galbeed iyo Soomaali abow iyo sidii Itoobiya ay u galeen oo dagaalka uga qayb qaateen halkaas ay ku ekeed xalqadii hore oo adigana madaxweynihii markaas jiray Maxamed Siyaad Barre oo mas'uul kaaga dhigay howlgelinta iyo tababarada jabhadaha markaad ka dalabtay ciidankii inay hawl galaan oo dagaalkii ay galaan maxaa dhacay waxaa dhacay u horeeyay horta news ahaa intii aan jabhadaha iyo intaas ku mashquulsanayn ayaa ruushkii iyo xabashida is afgarteen xeer salaasa meeshii ka baxay ninkii Mengistu ahaa wax alla wixii Itoobiya madaxda ka ay jiro dhan ayuu laayay wax yar ciyaar iyo asaga soo haray fiilashiinayso markii hore noqday xisbigii shuuciga shiinaha ayuu la xirtay ruushka lama xiran xurgufna waa ka dhex taagneed labadooda ay markaas ruushka si carooday arkaas oo maray Mengistu waa markuu qabaar xagga ku mashquulay Shiiniiskii ayuu wuxuu arkay inayan isku miisaami karin ruushka iyo Shiiniisku kala culus yihiin inayan markaas Shiiniisku heerkii u taagnaa inayan u dhigmi karin ruushka ayuu gar markaasna sanadkee la joogaa sanadkee la joogaa markaas waxa waaye 76 la joogaa 76 waaye bilowgeedii way ruushka isbedelay Mengistu markuu arkay inaan Shiiniisku ayaan wax weyn qaban karin ayay dhinaca kale isu rogay fag buu intay oo dawladda aatay ayuu Brezhnev hoosta ka galay lagu qabsaday nimankan wax alla waxa rabtidna weydiiso nimankan iga celi nimankan Soomaalida horarka igu soo inuu isaguna soo diray ma oga bas nimankii waa okay baa la yiri markaas waxa nagu bilaabay anaga hadal nagu bilaabay juuqa ruushkii baa idinku bilaabay maxaa ka mid ahaa asagu toos noolaan markii hore wuxuu soo adeegsaday Kuban iyo Bulgaria xisbiga shuuciga Bulgaria xisbiga kuwa afartameeya waxa la keenay waxaas iruuraca oo Bulgaarka xisbiga inta wadaaga ee Soomaaliya ay dhex galeen la yiri ka dhaadhiciya in la joojiyo dagaalka lagu hayo kacaanka Itoobiya colaadda Soomaaliya iyo Itoobiya oo labaduba kacaan ka curtay anaga Kubankii aan la soo adeegsaday Kuban awalna la joogay garanaysa oo intii horeba aan saaxiib ahayn ayaga la soo adeeg soo taabtay ayaga soo lagu bilaabay annaguna waxaan aragnay waxaan ruushka wata annaga hawshayada ruushka wata adinka xuma ogeydeen oo ku jikaarayna ma ogtahay marka asagina ma hadlayo kuwan xunka markii arrintii halkaas kuwii la soo diray ay ku jirdabeeshay ayuu toos hadal nagu bilaabay ruushkii wadilay joojiye nimankii isbeertayaalka ahaa iyo generaal waxaa jooga markaas xagga siyaasadda ka socda oo ruusha jooga iyo kuwii awal militariga u joogay xasan generaalkii baa maaragtay lecture saan waaye hanti wadaaga maaragtay in la xurmeeyo kacaamada in la xurmeeyo saan waaye meeshaas kacaan baa ka qortay maaragtay raashiyada hanuun soo idin galay hanuun noo galay soo noqon marka Maxamed Siyaad waad u timid jabhadii hawshoodii markaa dhamaysay ayadoo wada xaajiidada ruushka iyo waxaasna ay jiraan iyo kacaanku hays raaco Itoobiya kacaanka curtay iyo kacaanka Soomaaliya ayadoo tii taagan tahay maxaa is dhahdeen markaas aniga iyo jenaraal Maxamed Siyaad
wuxuu yiri waxaa markaa tiri jabhadihii hawshoodii waan diyaar waay hala galo yiri amar u baxshay hala galo ciidamadii hala diyaariyo ciidamada Samatar ciidamada hala diyaariyo uu fadhiyay markii hadalka aan isleeyahay ciidamada diyaariyo hadda diyaar wiig ka bacdi ciidamada hawsha galeen ayuu amar ku baxay bas kada laakiin hala diyaar balaan baa la rabaa balaankii qorshe ma jira miyaa markaas hala diyaariyo iska socdo oo iska dhaha ninkaan aduguna alihi allow ahaa howlahaas uga si fiican uga dhuun daloolay cali Samatar cali Samatar ilaa ay xad waa dhisnaa ilaa ay xad waa dhisnaa laakiin doqon oo ama shaqaystaa oo caajislow ayuu ahaa inuu aan sheekeeyo kaliya ku ficil laakiin aqoon waa lahaa aqoon ku filan ilaa ay xad waa lahaa seed yeesheen marka maxaa dhacday madaxweynaha hadduu amar baxshay ciidankii markii kii amarkii la soo siiyey xaruntii uu soo noqday adi markaas waxaa tahay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga lagaa dhigay waa ahay marka jabhadihii aad soo dhammaysay wasiir ku-xigeen gaashaandhiggaa lagaa dhigay dagaalkiina amraa la baxshay cali Samatarna waa wasiirkii gaashaandhigga maxaa samayseen marka waxaa la rabay markaas in xaruntii ay shaqayso abanduulku inuu shaqeeyaa la rabay oo qorshihii diyaariyo wax diyaarsanna ma leh waxaa ka daran meel xaafis walba isbeerta ruushaha fadhiya khubradii ruushka nin dhaqaaq kara waa nin walba waa fiirinaya saan u fiirinaya iyagaa la socda dhaqaaqiisa warsee la yeelaa waxaa la yidhi waa in la helaa hal nin oo keligii shaqeeya yaa dhahay saas meeshay ka dhalatay xafweyne iyo bahalkan ama Samatar iyo hal nin waa in la helaa oo de meel cilla inta la geeyo isagoo qorshaha sameeya marka waxaa la istusiyey baahida loo qabo qorshe dagaal iyo ciddii dejin lahayd si aan sirtuna u bixin Samatar oo ay yar xoriyana galaal haddii meeshaan wax ku dhaama ma hayne maaragtay habarteeday ka taareer ma yeelayo qorshihii samee ku yiri cali Samatar ma yeelayo markii waa dhib meeran kii u tegey madaxweynihii uu diiday yiri nin kalena ma hayno maxaad ku diiday adi markaas waxaa ku diidayay horta isaga waa ku xumeynayay midda kale aada iyo aad ay complicated u tahay waa arrin adag adigoo maaragtay inkastood diyaarsan tahay maaragtay ciidankii cirka iyo ciidankii badda iyo ciidankii difaaca cirka iyo ciidankii dhulka waxaas oo dhan iyo logistickadoodii iyo waa arrin culus aad iyo aad oo la rabay hogaamadu inay ka shaqeeyaan hogaan walba xiisa soo diyaariyo garanaysaa ciidanka cirka wuxuu soo diyaariya in la yiraahdo hal qof soo diyaari hal qof la yiraahdo waa urgent shaqo waa aad iyo culus waa arrin culus anyway maxaad dhacay waa yeeray wuxuu yiri xamsiyaada ku yahay war hadda miyaan isku soo jeesano yiri wixii aan wadno dhan ciidamada adaa og bahari kuwaanuna xoolo ma oga kana xoolo ma ogana waa leeyahay iyaguna mas-uuliyadda u dhiibay xoolana ma ogana waa leeyahay aabbaha was ka foon war ilan alla maxaan balaaya maxaa dhacay marka uu ku yeeray waa yeeray ilaa sameeyo yiri waa yahay meel xamar dhinacaas maaragtay warshadan baastada maaragtay hore meel oon galbeedkeedaas ana sidii aana garanayn meelay tahay ayaa la dhigay xafiis laga sameeyey waad aqbashay markaad aqbashay inaad samaysid qorshihii ayaa lagu diyaariyey xarun dad kula shaqeeyay lagu diyaariyey ma kaligay ayaa xafiis meel lagaa siiyey waa sheegaya barkee inay baxdaa la diiday waxaan qarsoomaynaa qarinaynaa ninaan waxba ka qari karin ayaan wax ka qarin oo ruushkii kalaama leel weeye
meeshiyaa lagu geeyey meeshiyaa la geeyey oo muqdisho geeskeeda saddex bilood ayaan meeshaas ku jiray kaliga lagu geynayo maxaad samaysaa saddexda bilood maababkii iyo ciidamadii iyo amarkii ciidanka la kala sii lahaa iyo mid walba meel jihaad u aadi lahaa iyo waa culusta qorshiyaa dejinay dad ma u baahatay in aada heshid adigu waxa u yeertay kuwa cirka iyo kuwa badda iyo waa u yeeray amarraa la siina waa loo yeerayaa taliyaalka marka waxbaad weydiisanaysaa waxaas ii keenaad leedahay marka waa qiina waxaa qiinay maaragtay ciidanka badda waa ogahay maraakiibta ay hayaan waa aqaanaa meeqa markabay hayeen baddu markaas waxay ahaayeen 4 gantaalo xambaaryaal ah oo maraakiiba iyo 4 torbeedo bahalna siluurayaalka tuura siluurayada bahalka sawaariiqda oo hoos marta waa gujiska kuwa la dhaho sawaariiqdaas gujiska ma aha submarine ma aha waa bahal ma arkin oo baabuur maraakiibta waaweyn ay marka kale ku ridaan miyaadan aragoo badda marta oo ah siluura la yidhaahdo okay marka 4 iyo 4 8 haysataa 8 oo madaafiic wada midoo gantaalo tuuraya ilaa 50 kilomitir gaaraya midna siluurooyinka ay ridayaan oo markaad aragtad ku siluurolo badda biyo dhexdeeda maraya ilaa ay ka qac ku tiraado ka markabka cadowga marka 8 markab oo madaafiic wata ayaad haysataan waa badda oo Ethiopiana badda markaas Eritrea haysataa baday leedahay baday leedahay adiga kuwii gantaal xambaarada waxa ay saacadaas berbera ka baxaysa ay kuwa gantaal xambaarada berberay degan yihiin saldhigood waa berbera kuwa waxa la dhihi jiray kataryaalka oo oo saluurooyinka tuuraya na waxay deganayeen Kismaayo marka kuwa gantaal xambaaradii baan adibka saacadaas berbera ka baxaysaan casirkii markay duhurka markay tahay ciidamada cirka Ethiopiankana waxaan rabnaa inay arag adink heegana geliseen qorshiya usoo noqon doonaa taas marka intaas ciidanku baddu yahay cirkana maxaad haysataan cirka waa badnaa dawlado badan ayaa jira intii gaarayeen qiyaastii xasuusatiin dhowr iyo 20 ay ahaayeen diyaaradihii miiga oo isugu jira 17 iyo 21 miig 21 iyo 17 marka taangiyadana meeqaad haystaan markaas adiga taangiyada cusub aan wadanay waa 4 urur ay ahaayeen T55ka iyo 3 urur oo ah T34 oo kuwii hore ah okay marka 34 oo T34 T34 la yiraahdo waa kuwii bansarkii Jarmalka eber ka dhigay marka waa qadiim laakiin waa qadiim adinka markaas wax cusub camal ay markii hore oo dhan waxay ahaayeen Afrika wax haysta male markaas adin kaliya ka haysataan anaga kaliya taangiyalka waxaan leeyahay hal guuto iyo 2 urur oo darkii meeqa waay aad haystaan taangiga adigu waa 9 waa guutadu waa 9 waa 3 ururkii waa 31 xabo ururkii 31 taangi marka la isku daro waa 100 iyo waxa weeye maaragtay kuwan oo T34 waxa waaye 4 urur waa 100 iyo saayid kuwa kalena waa sidoo kale 4 urur ay ahaayeen soo 200 iyo xoogaa taangiyad haysataan waa garto waa ismahadeen waa ismahadeen aad iyo aad madaafiicdana maxaad haysataan goobta camal aanu hayn da sodonka ku u dambeeyay la keenaa balaayaa oo maxay ahaayeen noocay ahaayeen xale dhowr urur bay ahaayeen hadda ma xusuusto tiradoodii oo waxa la dhahayaa da sodon shanta boqol iyo soo gaaray ridadiisa 18 kilomitir ayuu wax ka dilay laakiin madfac fiican buu aad iyo aad meeshii lala galo meeqa qiyaastii haysataan da sodon dal xoreeya loo baxshay dal xoreeya dal xoreeya da sodon isaga ahaa
122 da 30 oo ها maaragtay da 30 boqol labaatan iyo laba waaye da 30 oo da 30 da marka waxaa watay badidu waxaa watay ururkii horeeyay oo si fiican ugu dagaalamay indhaqarshaha indhaqarsh ayaa taangiyada madax ka ahaa maya ururka koowaad maya wuxuu madaficda da 20 madaficda da 30 aada u yaqaanaa feerto ku ahaa si fiican u bareen ciidanka lugtuna imisay gaarayeen markaas adiga 30 kun ciidanka 30 kun ay ahaayeen taangiyaduna dhowr boqol 200 iyo xoogaa madaaficduna qiyaastii والله taas ma sheegi karo waa iga lumeen markii korkan ka diyaaradahuna 20 iyo xoogaa dhowr iyo 20 ay ahaayeen marka intaas ku soo baxday ciidan intaas tiradiisu la eg yahay iyo madaaficda iyo hubka haystaan iyo noociisa Etoobiyana maxay haystaan markaas intaad ogtahay wax ma aragtay waxaas u dhigmi kara waxa ka jirtay hal guuto oo guutada tobnaad la dhahay oo Ethiopia oo jigjiga deganayd garab cas meel garab cas la yiraahdo ay deganayd taas waxay haysatay laba urur oo taanki ah iyo hal urur oo ciidanka halka urur waa imisa taangiga marka adigu waa sadan noocaas oo kale waa maleynaa inuu haayo waa maleynaya adigu kulli markii la isku socdo kontameeyay wateen taangi oo M60 leeyahay M60 Mareykan Mareykankaas siiya guutadaas ugu xoog badnayd guutadana hadee waxaan adigu haddii alarm loogu dhifto 10 daqiiqo ka bacdi waa ogaa jiray meel kasta joogo sirdoonkiina uu idin sheegay inay dhaqdhaqaaqooda la socoteen qaas mid ahaan ag dhignay ilaa iyada un baa maaragtay waxaan shaki ka qabnay ka jirta aan soo noqono marka General Galaal meeshii aad lagu xareeyay cidda rabtaad u yeerataa qorshihii dagaalkaad guda gashay qorshihii bilood ku jirtay 3 bilood ku jiray hay 3 bilood markay dhamaatay waxaan bilaabay wareeg inaan baalihii qaybiyo dayradan qaatay booliis leeyahay qaybaha dhan baan maray si aad u soo aragtid waa amarkii la soo siinaa okay markii waa la soo siinaa maabka oo amarka waa kana meeshaas weerar waxaad dhamayseen sidii dagaal waajibaadkeedii marka 3 bilood ku dhamaatay maxamed siyaadaad ku noqotay hay qorshiyaad gacanta ka saartay hay soo wareejiyo dagaal galay dad wad waa waday galow ku yiri dagaalka ya muxuu ku yiri marka qorshaha u geysay diyaar waayo hal galow yiri yaa abaanduul noqday marka abaanduul wixii horeysa yani sidii duurka la iigeeyay aniga asaga isku soo harnay markasta adiga iyo yaa fogeyn maxamed siyaad hay baalka kuwii hadda sidii meesha u jooga sabantar iyo geelle iyo shibanayaal u baxshay oo waajib ku saar adiga waajibkaaga dhigay waajib waxa ciidamada ciidamada dagaalka gali wad kaxee in walba waajibkiisa si kuna control inta shaqadaas ku diray dagaalkana gali kuna control amarkan yaa bixina dagaalka anigaas bixina aniga ma rabo asagu inay hadlaan ma rabaan wax kaliya ma yaari cali samantar marka waa fadhiya markuu saas leeyahay waa fadhiya cali samantar iyo geelle meesha waa duurka ah la isugu tagaya geellana banduulo ku magacaabay marka rabsha waxay dhacday markii ciidankii matalan frontigan waajibaadkiyaa siideen kulli meel kastoo la joogo ya ciidankii waajibaadkii baa siisay waa u geeyday qorshihii dagaalka awal waxay amarka igu siiyey qaybahoo dhan inaan anugu diyaariyo okay dagaalkooda iyo qorshahooda sababtana markaan soo noqonay yiri qaybta 26 salxaana diyaarinaya iska daa oo hargeysa fadhida markaas iska daa buu hay anaguna culayskaas
laakiin waan ogaa inuusan waxba u diyaarinayn aniga waxaan diyaariyey dhinaca koonfurta joy goday iyo qabri daara noogu daraa labadaas labada meeloodoo waaweyn oo ciidanku fadhiyey saan kuu sheegay dayuuradaan qaatay waxaa la yaab lahayd dayuuradda waxaa waday mid majeerteena markaan dhuusamareeb ka soo kacoon raba inaan qaybtii lixdamaad aado ayaan kii taliyaa xagga xarunta qaybta lixdanaad waa baydhabo waan la hadla waxaa ihi luuq imow markii baydhabo kuwiyaa jooga isbeertayaalkii ayaa jooga ka dhuumanaynaa khubradii ruushka marka luuq imow baan ihi kii duliyaha ahaa luuq igee baan ihi markaan dhuusamareeb ka soo kacayna muxuu sameeyey wiilkaas muxuu sameeyey wuxuu dabcay inuu aniga igu dejiyo doolow garoonka xabashida adi cid kalena kulama socoto kaliga markaan waardiye xataa ma wadatid may wate doolow markaan korta oo aan maaragtay awal warqadahan fiirfiirinaya ma og tahay ay saas soo degtaan saas u dhigto dhulka markaasaa arkay saddexdii webi meeshii isaga imaanayeen waada qootay ooda markiiba waryaa meeshaan waa xaggeed meeshaan waa dolow baa waryaa kici waa igu qosla uu yiri bastooladaa la baxay dhafoorka ka saaray isagii markaas tolay haddaan ku geyna ralligow tali tuugyahow tuugna wuxuu dabca aniga iyo warqadahaas aan wadno inuu xabashada gacanta naga geliyo oo halkaa idinku dejiyey aniguna waa gartay dhulkaanka ilaa dhul yaqaanaan ahaay isagoo qarqarayaan kusoo dejiyey igu soo dejiyey marka baxaan iri erd halka markaan luuqa degnay aan iri bax soco ma aada ribood garayna lama xirin maxaad samaysay marka ya waad soo dhammayday qorshihii baad siiday waktiga xabadda ugu horeyda la ridayo ma qorshaydeen iyo maalinta 23 Julaay 77 saacadduna tahay maqribkii bay ka dhaqaaqeen maqribka qolo walba dhaqaaqaysaa sideed u qorshaysay marka sideed u qorshaysay in loo galo dagaalka marka kuwii qaybta 21 waxay aaday abradaare toos u aaday macal taangiyadoodii madaxfiicdoodii iyo ciidankii lugta god tii lixdamaadna oo ku xoojinayna waxay aaday goday tan bay aaday qabri daare waxaa wata mid cabdi caluuq la dhihi jiray oo diraha tan godayna waxaa aaday ina aftooji abukar aftooji nin fiican u ahaa shideenti marka goday markii waxaa qashqashay dayuuradii xabashida marka maalintaas uu ka joogsaday 23 qabri daare maqribkii waxaan waagu markuu baryayay ayuu dul tegay cabdi caluuq waa soo aroorna u yidhi waa ila soo hadlay waa soo aroornay waa taaganahay haddaan maaragta degaynaa markaasuu afweynena waa ila ag fadhiya iyo labadii kale maxamed siyaad markaasuu yidhi amar sii hadeer dhaqaaqadhe gala markaasaa waraabti hadeer ma geli karaan see waayahay soo inay dhulka arkaan oo waxaa saamiyaan maaha soo inay baabuurta taangiyada iyo rashidaal ku shubaan maaha xalay o dhan 400-500 kilomitr ay socdeen ukaadi madaxweyne faaruq marka maya socda ariga waxaa maqlaysaa socda dhe kii baan la hadlaa ariga soco
markaa saan ku soconaa haddeeraa baana wade see waay adiga waana aqoon fiican u dhalaa ninkaa cabdi cabdicalow waa gartay oo in lagu ag taagan yahay taliya seen yeela waad ogtahay inay sidaan sheegaysa in almirda wuxuu yidhi intaan madaaficida meel ka rakibanayo aan ka rakibanayo aan dhahay halkaas dega ilaalana darsanayo u arkayo waa indha qarshahan intaas keliya ay ogolow buu yidhi aniga keliyaha maqlaha ma ogta ayaga ma maqlayaan markaa ha soco gal waa yahay samee soco sir wuxuu ku yidhi waa galaha u yidhi wuxuu keenaa aragne adigu marka 23 uu rakibtay 23 June 77 July maxaad u doorteen 23 wiilkayga cunadka ha dhashay cid ogeed lama arko marka male colkana waxaa la yidhahdaa feer arra la dhihi jiray ciidanka halkaas galay ugu horreeyey ciidankaas oo galay qabri daare feer arra la dhihi jiray feer arle feer arle waxaa faras aan lahayn oo baxdo aan jeclayn aad u jeclaa marka inaan la garanaad ugu tala gashay kelimadda sirta maxay ahayd marka afgaradkiina afgaradka iyaga waxaa wareer baa dhacayoo maaragtay waxaan lahayn bahal oo kood oo jifraari ah sifar oo maaragtay qarsoon ayaan lahayn oo caraweela la dhihi jiray caraweelo ruushka noo soo sameeyey marka waa muusig miya ya baaqa qarsoon baaq qarsoon ma eraya ma magaca maya waa hadalka dhan waxaad rabtaad qoraysaa waxaad rabtaad ku qoraysaa oo markiiba uu qarinayaa uu daboolaya system ay idin siiyeen caraweelo la yidhaahdo caraweelo u bixiseen ya ruushka idin sameeyey ruushka noo sameeyey laakiin ruushkii soomaalina dirin asagii caraweelo ma haysto waana maqlaano maxaa sameydeen marka waxaa horta bahalka waxa weeye waqti dinaamikada ah sideedaba wax weyn lama qari karo waqtiga mar haddii dinaamikada la galo markii dhabta la gaaro wax badan lama qarin karo lama qari karo waxaa la qariyaa inta lagu jiro organizationka waxyaalahaasa la qariyaa laakiin haddii hawshii la galo tala fara ka baxda maxaa samaysateen marka toosan ula hadlay gal iyo waxaasay ahayd marka fooneeyaadna ku xiriireyseen ya baalkan raadiyo weyna ay dhigan raadiyahaad ku xiriireyseen mawjadahaasa iskala hadlayseen ya mawjadaha raadiyaha iskala hadlayseen bosibnaasada la dhahay garanaysaa raadiyo weyn waxa weeye oo intercontinental oo ruushku idin siiyey oo ruushka marka midna meesheedu ku rakiban yahay oo midna qaybaha wata okay halkaas kusoo dhacayaan wax oo dhan halkaas kusoo dhacayaan sidii dagaalkii aa loo galay lagu galay 23 marka maxaa dhacay markii uu yimid hadda dhagax qabri daharana saasay u gashay goday dayuuradii qashqashay waa inaan dayuurado korgeynaa dib bay u dhacda iyadu berri diyaaradihiinii dagaal waa qaadi waayeen markii horeba ma aanaan dirin ma aanan ogeyn laakiin cilada dambuun ogaa doono ma aanan ogeyn maxay ciladaad ogaatay aan ku soo dhameeye markaasuu yiri aawa dhagax buur iyana maxamed siyaadaa ku leh halkaanaad ka furtay dagaalkii goday iyo jijige dhagax buur qaybta 21 waxaa samaynaysaan iri suurada miyaadan samayn ma samaynaa iri oo maxaa jira anigu samayn kuma dhihin waa tiri laakiin samantara ay yiri salxaana samaynaya markaasuu waa dhugtay samantar maalintaas dhulku inuu la go'o uu jeclaa isla joogtaan markaas waad la farfardana markaasuu war maxaa dhacay maxaa jeclaysaa markaasuu salxaana warma salxaan baa wax samaynaya uu yiri annaga waxaan nooleed salxaan wuxuu samaynaya hadda wuxuu sameeyey uu yiri waxba
hadeeraan dirayna hadeeraan galaal u dirayna galaal godkaama qodmo daca nacas dhalo ahaa marka taasoo meeshaas see u xallideen marka taas ya sidee loo xalliyey anaa tegay markii dambe aduu ku yiri tag waa tagtay haye markaas qorshe hore laa galnay see u qorshaysaan marka ya waxaan soo diray urur waxaan ka keenay taangi iyo urur ciidanka lugta ah qabri daari iyo urur madaaficda goobta indha qarshahan saddexdaas xaggan ka keenay labana meel halka qaybtan ka qaadanay dhagax buura ku dhufateen marka nimankaasaa waaye arag ahaayo hadeer markii ilaa ninkuma ogtahay si kasta u diyaarsan yahay waaye aragnimo waa la rabaa ma ogta practical la rabaa nimankaas practical haddiiba qaateen saddexdaas xagga ka keenay meeshii degan waxay kala furteen bahashii dhulkii u degay midkii madaaficdu maaragtay wixii buu qaatay observationkii iyo waxyaalaha dhulkii 15 daqiiqo markuu la dhacayay ay banaanka u soo baxeen indha qarshaa la dhacay 15 daqiiqo markuu ku riday karartii saddexaad markuu ku wado tan koowaad meeshaas ku dhifay tan labaad xagga tan saddexaad oo soo yaaceen ayuu kala yaacaya Ethiopiankii dhinac kala martaan gaalka iyo qashinka iyo balaayaa ku kaceen huf ayaguna waa dagaalameen balaayo ahaayeen balaayo intaas xooggaas kastoo saarnay qaar baa inta wixii dhan ka fakaday jigjiga galay Ethiopiankii niman balaayo ahay niman balaayo iyaguna kuwaas horta marka ciidankiina aad ku tashanaysaan oo dhan waa 30,000 Ethiopiana waa imsa ciidankeedu markaas ciidankooda wuxuu iska ahaa ebrow ahaa ruushka wuxuu ka qoray haddaad arag muxuu ka qoray laa ilaaha illa allah ceebta iyo fadeexadda imsi gaarayeen tir ahaan dhowr boqol oo kun ay ahaayeen idinkana 30,000 la ordaysaa marka wuxuu yidhi maba nimanka saraakiishooda ciidankoodii meeli jiraanba ma oga maalintaasoo dhan wuxuu muusikay dheelaaya markii maqlaan taangiyada iyo madaaficda soomaalidana dibadday ku dhacayaan taas waa warbixintii ruush ka qoray markii dambe balaayo ku dagaalkii aad gasheen maxaa marka dhagax buura ka gasheen godayaa gasheen jigjigaad gasheen hay see waxaa la rabay markaa feeri qorshuhu laba taabo wey laba waqti laba waji oo kala ahaa laba waqti oo kala waqtiga koowaad waxa weeye qorshaha guudna waa mid detailsna waa u qoran yahay details marxaladda labaad waxa weeye qorshaha guud waa qoran yahay laakiin detailskii ayaa la rabaa in la qoro haddana marka jigjiga iyo maaragtay iyo dirir dhaba iyo waxaa la rabaa in detailskoodii la qoro qorshaha waxaan anigu markaan anaa awal hayay qorshaha guud oo qoray markaan tegaya waxaan u dhiibay geele waa banduule ahaa marka waxaa la rabay inay detailskii sameeyaan ma sameyn iikaadi marka adiga roolka kaalintaadii dagaalku xaggo ku ekaa adiga dagaalkii waad gelisay qorshihiina waa qaybisay xaggee la qabtay markaas marka qoladii dirdhaba kor maraysay kuwaasaa la ii dhiibay adiga waxaa la yihi maaragtay adugu halkaas dhabar jabin xoog lehay ahayd halkan waa lagaa wareejiyey marka hirgeli lahayd waxay ahayd bahal caalami ah goormo wey markaas xaggee la qabtay marka waxaa qabateen goday iyo qabri dahare iyo dhagax buur waa haynaa goday iyo qabri dahare iyo dhagax buur ayaad qabsateen kulli waa haynaa markaasaa maxaa la sameeyey marka waxaa la rabay in la qorsheeyo oo isku mar hadda waxaa simultaneous attacka la rabaa ma ogtahay qabri dahare waxaan dhihi lahaa jigjiga iyo dirir dhabe isku mar in la qabto in lagu dhifto dagaalka ayaa qorshuhu ahaa midka guud
detailskii baa la rabay detailska ka dhib badan waxa kasta wax sameeyo male faahfaahintii dambe wax sameeyo marka aan u soo noqono si aan u fahmo markii magaalooyinkaas la qabtay oo maamul loo sameeyey adiga waxaa lagu dhiibay kor ka soo wareega la shaqo waajib cusub baa lagu saaray muxuu ahaa waajibka cusub inaan dir dhaba kor ka soo galo marka dir dhaba awal hadda deegaanka si fiican uma aanaan garanayn dir dhabe hay deegaanku waxa weeye waadiyaal iyo buuro iyo godad iyo jimi waana waqti roobna ku abaaranay marka raaca hore ciidankii markuu raaca labaad weli wuxuu joogay Loghaya in la soo raro oo la keeno yaa keeni lahaa xaruntu inay ka shaqeyso detailska qorideeda iyo ciidankaas soo raridiisa labadayba male waxay ahayd Agosto 12 ahayd in dagaalka la galo dir dhabe iyo Jigjiga 12 male 13 male 14 male wax kula hadlaya male 16 la gaaray August marka waxaan inaan galnay meeqa ciidana wadataa markaas adiga laba urur oo taanki ah iyo laba infantry ah lug ah ciidan tiradoodu waa imisa kun markaas iyo urur madafacda goobta iyo bateri ah BM intaas wadataa xagee tagtay marka horta nimankan wadayaalku dhul banaan ay bahalka ku wadi jireen ma og barteen hay taangiyada iyo waxaas dhul gab afar hadiiba gadoontay waa gartay marka uma u jeedo ma yaqaanaan cimilada dhulka ma yaqaanaan bahalku feere waxa waaye bahalku 30 mitir wuxuu u soo dhaafa ma arko waa ka indhalaya geedana waa ku jiraan 30 mitir ka shishana wax dhaxa kuma arko markuu 30 mitir u soo gaarana ma arkaba qib oo ku dhacayaan god gab waa rogmana bal taanka rogmaday adoo kaala الآن ماشي يالين marka dhibka ugu badan wuxuu idinka qabsaday cimiladii deegaanka inkastoo saasta waa galnay waa tagteen waa qawan waa la qabtay airportkan tagnay dirrab waa qawanay dawladii oo Ethioopianka waxaa jiray aad horta u tababar meesha kaliya tababaran ciidanka cirka ah si daran u tababarna ciidanka cirka Ethiopia dawlad fiican waa wateen oo F5 leeyahay F5E waxaan u haysanay 4 baabuur oo shilka la yiraahdo oo ruushka geedahaas dawladaha yararka oo inay 2 kun soo degaan ayay wax maaragtay wax booqayaan waxtaa geedkana laga horgeeyay waa carabta dibadday ku dhaceen diyaaradihii bateriga BM ka ahayo warigeed ayaan arag xabashana qoryahaas aan ag dhignay say u daafacaan marka hada oo diyarad guuraysa labada bahasha markay rudo BM ka markii lagu riday xabashadii nin fiican oo maxamed dheere la dhihi jiro oo marixaan oo waawid aad iyo aad baraaw ah sargaal fiican oo warka ka ciidanka watay markii lagu riday fish waa kala yaaceen meesha waxay soo kaxaysteen hal bambar ayay dawlad bambar ah oo Canberra la yiraahdo laba ilaahay warigood labadii mid Eritrea inta la soo fakaday oo noo kana Hargeysa oo xabar geynay
ayaan haddana kismaayo sii geynay kismaayay taallaa ku baaba'day diyaaradaha middood ya waxaa la bambar ah bambar marka diyaaradihii idinkana diyaaradaha waad ka liidateen marka dayuurada kaaga sheekay doonaa marka dayuuradihii yaryaraa waa iska celinay oo xabashida waxa aan wadanaa huna 4 kilomitr ka kor wax kama dili karo halkii bombara haray ayay soo dhaamiyaan 5 kilomitr imaanay diyaaradaha Etoobiyaanku bahasha bombarkaas iyo xayn ilaala ka ah oo ayada ilaalinaysa iyada ilaalinaya dhotto adoo arkaya baabuurtaada mid bomar dhotto waxaad kula soo qabateen male dayuurad ku ridan male dayuurad ku imaanaysana male dhotto waraa dema everin ka dhigaan wax badan markaa arkay inay saas gelayaan ciidamadii aan arkana haddana meeshaan meel taangiyadu iyo ka dagaalama karaan inayan ahayn anigu ciidankii badnaa waa soo celiyey dirna waa ka soo celisay waa ka baxay soo celiyey anigu soo meeshaan ku haray adaa ku hartay aniga iyo waxaan la haray hal urur oo ciidanka lugtaa iyo 3 taag 4 taag waxay ahayn maaqaan inta kale waa kuwa jigjiga lagu qabtay jigjigaad u dirteen banaankaas waa dhag waaye waa meesha waa ka marka markii taasoo dhacday jigjiga sabantar iyo waxay yimaadeen xama waa ka soo duuleen hargeysa yimaadeen adiga ciidankii oo dhan marka waxaa la isugu geeyey jigjiga la weeraro waa la weeraray waa qabteen waa la soo celiyey waa la soo jebiyey waa ku noqdeen adiga on dhowr goor markii lagu celi markii dambe waa la banaankaa la dhigay Ethiopiankii waa laga adkaa dayuuradayaa kuu soo haray dayuuraduhu weligoodba dog fighting wax la yidhaahdo dagaalka hawada maba la barinba maba bilaabinba hal dayuuro ayaa 22 eber ka dhigtay hal Ethiopian hal dayuuro Ethiopian waa maxay sababtana waa maxay sababtana waa markee dog fighting ka noqon inay wadaan oo caadi ah lagu tababaro maxay qabanayaan illa ninkaasuna nin jiro waayo aad iyo aad u tababara balaayo qaba balaayo eber ka dhigay eber maalin 6 dhulka dhigay waxaan waa maxay balaayada markaan damboon ana wali la yaabanba ayaa waxaan arkay midkii taliyaha ciidanka cirka ahaan jiray Yusuf Dheeg ayaa eranayta markaas war la ku haysta ciidankan weligood dog fight kala baray oo maxaa jira waxaa baray sidoo waxaad siyaada diiday se ku diidaya waxaan dabcano weerar inaan keensano 2 nin oo Bakistaaniin ah oo nabara dog fighting dayuuradaha nafteedan ku baranayna hay ugu barayno warna kan hawiyo meesha soo dhaawmay dog fighting ugu baraysa oo dog fighting asoo wuxuu dhibaato ugu jira ila dayuuradu waa taagan ninkan waa kulli waa duulay hadduu dheelaha maaragtay amnigiisa wuxuu marka in inqilaab lagu qabsado wax dhibaato oo ku shaqo dog fighting iyo amnigiisa maxay isugu jira waxaan la yaabo dog fight niman wuxuu ku tagay nimankaas ciidamadaas in la laayo waa gartay haddii aan ka gudubno marka oo imaam marka dagaalkii jigjiga waa la qabtay dhagaxbur waa la qabtay goday waa la qabtay dir dhawaa dhiman halkaas markay marayso see wax u dhaceen haddana aniga waa la soo waday waxa la keenay meel jigjiga la keenay meel kaara marna la yiraahdo in kaara oo la mari la ayaa la yiri bal asagura oo aan la qaban wali hay kaara marnadii waa jirnay meel xaadow la yiraahdaan tagno waa ka gudubnay kaara marna meel waxaa la tegay
togan la yidhaahdo Faafan ayay dhinaca shishe ka joogaan meel taagaha waxaa saaran hal madfac oo 155 milimitir ah oo taanga ah si kasta inta la yeela bahalkaasaa la mari waayo markaasna hadde waxa baa nagu yaraatay rasaastiina waa yaraatay bahalkaanuna wuxuu tegayaa ilaa iyo dhowr iyo 20 kilomitr wax ka dilayaa annagana midka noogu kii 18 oo haddana la jiidayo hal kolba soo rido dadka kuruuga dadka madaaficda ridaya oo eber ka dhigaya asaguna qafilan ku jira oo taangi wax kasta ku rido ma jirto halkaas intii muddo markaan joognay anigu meeshii ku noqday xaggaas ku noqday dirrabe marka waxaa la yiri aniga wax fikraa male aniga marka qorshaan soo jeediyey oo hadda caqli maahan inaan haatan annagu midowgii Sovieti iyo iikaadi marka intaad caqliga soo jeedin dhulkan markaa qabsateen ood haysataan ruushkii isbedel uu sameeyey si toos oo dagaalka waa ka u wareegay dhanka Itoobiya maxaa dhacay markaas ruushkii wuxuu si toos ula saftay Itoobiyaankii maxaa ka horeeyay la safashada waxaa ka horeeyay waxaan maqalay anigu hadda halkaasaa jiray uu u yeeray ruushku war dagaalka joojiyo weli aan idin dhexdhexaadiyo aan aad idin dhexdhexaadiyo inta aad hadda haysataana qaata anaa ka dhaadhicinaya inay intaas ka samraan waxaa idin hartay 2 ama 1 gobol waxaan dheelahay magaalo maxaana idin harsan markaas labada magaalana waa idin wada hadal siinaya markaad u qasaartaan hal waa helaysaan dadna labadaba helay waxa waa Dirdhabe iyo Harar markaad u qasaartaan hal waa helaysaan waa gartay anigu ogaadana anigu adinkan idin la jiraa anigu idinka idin la jiraa afkooyna waa diiday waa gartay markii durbaana laga garaacay maxamed Saad waa diiday muxuu u diiday bal adigu sheeg wuxuu u diiday muxuu u diiday dawladda dog fight kala baro muxuu u diiday waxaa dhici karta inuu islahaa waad guulaysatay waad helay inta kalena xoogaa ku helay soo lagama yaabo sidaas maya been baa loo sheegay waxa la American baa wax walba noo haya marka American isku haleeyay been ayaa kuwa safaaradda Washington joogta iyo kuwa xamar joogay oo anti ruush iska ahaa weligoodba ayaa durbaan la booday yiraahdo aqbal madaxweyne marka waa ka diiday ruushkii waa ka diiday marka asaga codsaday inuu maaragtay inuu arko sida la leeyahay hay'amada yiraahdeen uu tagay maxamed Siyaad xaguu tagay Moscow intii xiriirka kala goosan waayo waxaa loo diyaariyay inay la hadlaan prime ministerka Kosygin la dhihi jiray iyo midkii xisbiga shuuciga ideolojiyada u xisaabsan Suslov la dhihi jiray oo dheer Suslov qoway aad muddo qoway iyo mid la dhihi jiray Gromyko Andrei Gromyko oo Soomaalida shaydaanka ka nabcaaday waxaana nagu diray
cabdiraxmaan shacab georgiyaanka kii ahaa ya ha kaasuu nacay aan usoo daadegno dagaalkii sidee jabka u dhacay ya marka guul ayaad ku naaloonaysaan soo maaha haddana jabaa dhacay see jabka u dhacay damay anigu waataan kuu sheegay qorshe waa ogaa inaanaan celi karin hay 20 taanki ayaa anagu inoo hartay taangiyadii oo dhowrka boqol ahaa meeqa idinkaga hartay 20 oo keliya hay maxaana meesha Haramaanyo la yiraahdo oo 30 kilomitir gudaha ku jirta maxaa jooga anaga waxaan ognahay 180 inay joogto meesha 400 joogta oo Etoobiyaanku wataan ma Ruushka Etoobiya waa laga quusto Etoobiyaankii Ruushka dagaalkii galay waxba loo Ruushka Kuubaan T55 na Kuubaan ku dhigay baa la yiraahdaa MT 64 T74 na Ruushka wada oo toos u galay toos u wada waa ninka odaga generaalka ag fadhiya generaal afar laa meeshii la keen oo taliyaha ciidanka lugta dhan ah wars Ruushka ya rad amiga bahala soo taliskii waa lagala wareegay Ethiopia marka dhulkii qabsateen dir dhabe iyo hararna aad doonaysaan 20 taangina idin hartay ayaa la yiri markaas waxaanu macquul ma aha aanu hal meeshaan yeelno waxaan samaynaynaa 6 guuto gobonimo doon ah ayaan buuraha gelinaynaa inta u dhaxaysa harar ilaa iyo haadaamo gobonimo doon gelinaysaan gobonimo doon gelinaynaa 6 guuto 3 Soomaali iyo 3 Oromo saddexda ormada hoos aadeen saddexda Soomaalida dhinaca sukaa joogay buuraha dhan ha galeen yaan meesha waxba soo bridge oo dhan dhulka ha dhigeen garanaysa bundooyinka burburiyaan annaguna ciidanka inta yar dib u soo celino oo dhul cilaa qorfa ah oo aan wax istaraatiiji oo macnaha oo leeyahay aan la arag intaan ka soo celino oo dhulkaas ka jigjiga iyo jinacsani intaan isugu soo xirno aan ma aragtay buuxintooda iyo tababarkooda iyo dhamaystirkooda iyo wixii aan galno iyo dayactirkooda wixii taanga saasa soo jeediseen taasoo soo jeedisay adaa soo jeedisay soo jeedisay Cumar Xaaji ayaa aniga ila saftay General Cumar Xaaji Musalla وهالك نك اللي يراد صوت ترى صلاح العركة وبودة ودول كان قصد كسرنا ودول كان قصد دول كهلا بحر هذين عن هالكاس دفاع كقلنا هاي حالة قيمة يصير هذا قد دفعنا الدول كان أول قيل سنة صاحبه ولا أنا ده وإحنا بالطريان ما يحل يا ما دينا دول كان ما كبحنا مركب ورق شيء كانوا جاي أصلا وينه وقرأت بينه وأي بين جوري وهي يقول كوي وأشياء يا بالعارض كوي أيوشة هو نمك حركة أبودي بديدين مركو حويرة بس هذا يديدين بالواحد كان عرقنا أضو قصتك هذا اللي سوى بدله صقروا أنا isdiyaarintii ku jira inaan soo baxo ayaa meeshii aan ka imid la soo jiiray dir dhabe la wanaajilay inta la soo galaya jigjiga qarka loo soo fariisto yaa waxaan maleynayay ma ogta markaasuu yiri dagaalka hala qorsheeyo dagaal maxaad qorsheynaya markaas inta la yeeray qorshe anigana safarana waa socda waxaan qorsheynaa ma laga tagaa 20 taank aniga waxaan xagan qorsheynaa iyo dhowr boqol oo taank oo ka soo horjeeda diiday waatana wax ka gura adigu kii u sheeg
qorshihii waa diiday buu yiri markaasna laba tagtaangiya waxay leeyihiin salxaana wuxuu leeyahay aniga isagoo qaybtiisii ma ogta anaa dagaal gelinaa huu yiri anaa dagaalaya anigaa galaya haye ahla wasahla wahya qorshaha u sameeya war qorshaha maxaa sameeyaa maxaa qorshaha u sameeya labaatan taankiya qorshe u sameeya maya abu xarxariiq baaraan anti taanki camal ha loo isticmaalo bal wixii kaloo la qaban karana ha la arko haye xarxariiq fiiri markay ay ka dhiman tahay waktigii dagaalka markay ka dhiman tahay 7 beri ayaa salxaan yiri luga ka jabay log ma soco karo anigu kasara galaala lagu bedelo waa aabihi wasaga tagaanay waa diidi kiya mar walba loo tagaya diidine wartag meesha haddii waxay ka soo baxaan aragne waa tegay waxaa jira marka waxa loo maaragtay waa harar waxaa laleeyahay hala weeraro yani xagga koonfurtana in laga weeraro xagga waqooyigana looga soo dhaadhaco koonfurta waxaa jooga waa meesha aniga lafteeda fadhiya mid cali ismaaciil la dhihi jiray oo jenaraal cali ismaaciil waa la yaqaan oo ah dashiishi war cali may adeer waa gelaynaa ma gelaysaa ahla wasahla kuwii kor ka soo weerari lahaa kumbul jamee la yidhaahdo ka soo weerari lahaa harar ayaa waxaa lagu qoray nin la dhihi jiray maxamed cali abukar oo dhulbaantaa aa lagu qoray waa loo jeedaa waa meelaan suicide markaasuu inta galgasho xagga togana darla la hadla waa laga bedelay markaasa waxaa lagu bedelay mid la dhihi jiray ina lebaxsan ka taabta mid la dhihi jiray mataqaana kaas waa garanaysa kiyaa lagu bedelay waa iska baroortay waa la bedelay yaa lagu bedelay xaash cali rooble aniga maxaa laygu bedelay salxaan caarana wuxuu joogaa jigjiga allawaada beerka o dhan abukaraa lagu bedelay caare marka ya cari abukar maa laisku bedelay may caara jigjig joogaa caare abukar wuxuu joogaa hara wuxuu joogaa godeye yani dad qaas ahaa meeshii so intiina isku waxaa tihiin marka marka ujeedaduba waxa weeye waa maxamed siyaada wahashii bedesho qatar wuxuu u arka ciidamadan oo soo noqda okay oo qatar u arka kursigiisa qatar u arka in la qaarjoog ku talagalay ciidankaas egtanaas inaan tagno so adi waxaa joogtaa harar aniga waxaan joogaa harar aftooja wuxuu joogaa waxaan dheelaa caare jigjiga caasha cali roobna wuxuu joogaa kumbulj taasaan looga taqalusaada maxaa dhacay marka ya maxaa dhacay marka alla ma oran haddee nimankii waktiga gabagabeyn waa maaragtay waa alla ma oranayo meeshii waa laisku dayay waa beebe yar haddiiba waa lasoo samatar markaan meesha tagay oo wixii fiirfiiriyaan waraqad usoo qoray taan usoo diray war meeshaan nimankaan waxba ma hayaan meesha waxba kuma hayne dadkan iyo anigu weli ma ogi in maaragtay ciidankaan ma celin karaa meeshaan aan ciidanka dib usoo celino kii markaan warqadaas diray ayaa waxaan arkay warqad telegram uu diray
cali ismaaciil oo leeyahay waxaan ku talagalay inaan meel halkaan miino ku xiro halkaasna miino ku xiro ana weeraro oon saas harar ku qabto markaasuu yidhi soco bravo xaggee nus saac intaan laga soo wareegay taarka u diray nus saac intaan laga soo wareegna waa lasoo jafay waa la soo jafay waa la soo eriyay hooyadaa u soo eriyay maxaad markaad lahayd waa soo qabqabanaya maxaad moodeysa sababta wuxuu u qaatay inaan anigu sabotaaj garanaysa aan erey ka soo baxo isdhiiba intuu soo kaxaystay horin booliisyo militaar ah ayuu wuxuu yiri meel la yidhaahdo galaash uu rabo inuu aniga markaasuu yiri cali ismaaciil adigu imaada galaash cali ismaaciilkii uu weydiiyey oo cali ismaaciil soo hormaro isagoo weydiiyey galaash oreerka waxba ima dheeno yiri baalki waana soo muquuriyey markaas soo istaago gala raala ciidankiina markaan soo baxnay annaga labadeen annaga soo daba yaaceen soo wax ku harayba malcarada markaas gala ciidanka celi ilaahay kugu dhashay ciidanka celi oo maxaad awal noogu yartahay kelmad ima dhihin kale wuxuu islaahay cali ismaaciil wax kuu sheegi doona kan qabo oo wixii la rabay hadduu xagga ku dhiban waayaa soo baxnay adigu ciidanka meel la yihahdo muli ayay isugu soo celinay halkaasaan isugu celiyey waa degeen war halkaas degaan bal kuwa yaa yimid geele iyo salxaan iyo hayo salxaan hadda waa soco kartaa miya marka ciidamadii markii lasoo jabay xaggee la isugu keeno ya markii magaalooyinka o dhan laga soo baxay waa laga soo meel banka muli la yihaahdaan ku eri ayaan isugu keeno oo meeshii uun 30 kilomitr xagga ka soo xiga meeshaasaan dejinay ku nastoonoo dadka degan oo karanla deegaanka karanla raashinka waxaasaan uga qaadnaba badanoo cuntadii ku karkarsadeenoo meesha ayagoo meesha isagoo ka soo tegay ad xamar timid xamaraaimid anoo jooga wax yar anoo markaan joogo 2 habeen waxaan joogo maqaari lasoo jiiray lasoo haraati lagu soo dhiftay markaa markii ii yeeray madaxweynihii meesha hadda waa loo balaaya ka dhacday see la yeelaa anigu weli waxaa jirin weyn aan iska awalay markaasaa war ciidanka filtuu degan ninkan waa ku baaqan ciidanka filtuu degan oo cabdullaahi yuusuf oo aan xabad ridin haddeer amar si dagaalka geli nagayl haddeer ha ku dhifteen waa cidla markaas weliba ha sii gudbeen oo awaasadan iyaan haddeer maqlayno iyo shashamane iyo hore u galeen markaas ilaa ardisaba 50 kilomitr kuu jirtaa heeraha harooyinka waaweyn meel la yidhaahdo ayaa xagga koonfurta kasoo xiga oo dhir badan dhirtaas iyo ha gareen harooyinkaas waaweyn waa soo celinaa ciidanka mangistu markaasna ruushkia wuxuu ku dejiyey kala bayrka ciidamuu ku dejiyey taangaal iyo markaasuu yiri waa runtaa laakiin ma waxaad rabtaa markaas waay markaa wax fahmaya waa runtaa waa fikrad fiican laakiin ma waxaad rabtaa niman maxamed siyaada ahayn in la yihahdo guul wade markaas waxaan israa maxamed cabdullaahi yuusuf shaka ka qabaa waana saxbayahay markii inqilaab diyaarsanaya markaas jale madaxweyne bedel ninka bedel ninka rabtoo kale u dhiib markaas kulligood waa isugu ka yimid ninka marka inta igu soo jeesto yiri warniyaho saaxiibka baan ku moodaya ilaa waxaa taa cadaweyga saana cadawaaga ma hargeysa la qabsanaya jale madaxweyne war hargeysa sheegaysaa madaxda la yimaado yiri oo qoostay halkaas dagaalkii sidaas uu ku fashilmay jabkii ku dhacay aad iyo aad ayaa jenaraal maxamed nuur galaal u mahadsan tahay kadib
dagaaladii sokeeye iyo siday u dhaceen bal xalqa ku saabsan ayaanu geli doonaa haddii ilaahay yiraahdo aad iyo aad ayaga laftooda xiiso meerana aad iyo aad u mahadsantahay